ina isdabir iyo ina xaaji nuur iyo wiilka horgalka ina gagaroor axmed gagaroor oo saxaafad duubaya baa ii muuqday adiguna gagaroor waxba ku oran maayo maya abti haddan abti ima ahay adiga waxba ku oran maayo oo insha allah bilkariim gacanta harti baad ku dambayn doontaa adigu laakiin nimankaa waxaan leeyahay ina isdaberi ina xaaji nuur waxaa la magaaladu nabad bay ahayd hadday nabaddiidin la xumaataad bilowdeen inaad maatooyinka iyo guryaha yaga baadhataan ma aad baanan doontaan haddii alla yari haddaydinaan si degdega wax uga qaban ma aad baanan doontaan intaasaan ugu soo noqday asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaamullah wasalaam yaa waayeeladan awrbogeys waayeelkeedii saaka halka ku dhan saxaafadda dhallinyarada ciidamada waa salaamayaa wixii islaam baa salaam islaamkan ku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa waxaa raacda sidii odayga hore ka sanqariyey bayaanku waxa weeye dadkan hartigaa gudba ama baabuur gudbiya ama naftooda gudbiya ama wax kale gudbiya haddaan awrbogeys joogno saaka bayaan ka soo saarnay haddii aanu la isla eegay ciddii tagtay ee halkaa u gudubtay ama ganacsi ha ula gudubto ama qaraabe ha u gudubto ama islaamnimo ha u gudubto de horta waa la laayey waa la isla ogyahay ragga halkaa dee waa ti lagu wadhay inta dambe ee hambada waxaanu soo saarnay dee inaanay tegin waayo waxaa leeyahay nimanka harti nimanka loo gudbaya ma soo gudbaan mana yimaadano ma soo gudbaan waxa gudubto waa baabuurteena transitka ah ee ka timaada gobollada harti oo isku dhan waxaanu leeyahay baaqa nimayo harti hadhow baa waya inaan la kala caban tolnimo iyo islaamnimoba dadka hal celiyo geeridoodii waxba waa tari weyday hal celiyo waa taas waa taa waxaa go-aan laga soo saaray in gaarigana ciidamadu leeyihiin wixii saarana waras yihiin go-aankaasaa la gaadhay baryana maaha intaas waa inta kale waxaan taabanayaa dee gobolka sanaag waxaa lagu wada noolaa nabadgeliyo iyadoo gobollada kale dagaal badan aad iyo aad u halisi ka soconayo waxaa dee nabadgelyaa lagu wada noolaa sida taliyi shala sheegay nabadgelyadii dee hadda dad shacaba baa laleeyahy baa la xuubiyey la ururiyey garadag baa la geeyey dadkii nabadgelyada isku noosha ahaa wada dhashay gobolka wada joogay isku noolaa warkeedu dee saas ugu baxay taana waxaanu leenahay waar gobolka sanaag waa yeelkeedii joogay dee dadka ha la soo daayo si shuruud la-aanana ha lagu soo daayo nabadgelyadiina sidii la isugu noolaaday haloo soo celiyo gobolka sanaag sababtoo ah hadda dee raggaa ku dhinta lagu laayey boodda cadde iyo hareeraheeda iyo soolkeeda waa gobolka sanaag dee waxba lagama qabane waxaanu leenahay nabadgelyadu yay xumaane qaar nabadgelyadii sidii shalayba loo sheegay nabadgelyadii xagga nabadgelyaa lagu hayaa nabadgelyaa lagu haya ciidamo iyo waayeel iyo shacab halka dee nabadgelyaa lagu hayay nabadgelyadii waxaa iyo maamulka SSC inay colaad ka huriyaan inay dad ku laayaan laguma talagelin in si wacan la isu fahmaana way fiican tahay waxaa dhacay dee colaadda waxaa hurinaya hadda dee dumarkii baa la laayey dhaawacoodii jiifaa dhallinyaradii baa la qaaday warar badan baa dee meeshaa ka soo boodaya iyada waxaan waa yeelkii sanaag الرحيم صوم بلابو بسم الله الرحمن الرحيم وان سلام يا بهذا الصحافة عيدا مدى ويلك هوينك انتن ارقدة طمان اوشوكته اوصوب بحضي صحافة اني دوبان وان سلام يا وحكم سلام يا سلامة اسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي hore ay waayeelada ay u sheegeen saxaafadda waxaan u duubnay oo maanta u qabannay
dhibaabaha halkan ka jira xaggan galbeedka ayaannu u qabannay saxaafadda waxaannu sheegaynaa sidii horeba loo sheegay nimankaa colaaddu deena ka dhexayso inaan hadday ganacsi tahay iyo haddii wax kale toonna tahayna aan loo gudbi karin oo dadka harti aanay u gudbi karin kadib waxaan leeyahay SSC ha noolaato ha guulaysato ha jirto ha joogto intaa kadib waxa weeye halkan baaqa waxaanu isu soo taagnay waxa weeye waa digniin baaqaasi wuxuu ku saabsan yahay sidii waayeelada hore sheegeen inaan wax gaadiida oo SSC iyo Somaliland u kala gudba aanay jirin ciddii u gudubta waxa gaadha iyaga ayaa ka mas'uula waxaanu ku baaqanay oo u sheegaynaa cid kasta oo gaadiidkaa leh iyo cid kasta oo u gudubta wixii gaadha inay iyagu mas'uuliyaddeeda iyagu mas'uul ka yihiin wixii dhibaato oo gaadha sidaa loo sheegay go'aanka aanu isla qaadannay waxa weeye saraakiisha waayeelada cuqaasha garaadada dhammaan waxaannu isla qaadannay inta laga helayo nabadgelyo caama inaan wixii u gudba SNM aan laga qaadayo tallaabo sharciya oo arrintooda waafaqsan sidaa nin waliba ha ogaado gabdhaha baan salaamaya saaka wax baryo oo jira ma jiraan maqla anigoo sulub bilaa waxaanu bariyeen ma bariyeen haddaan 24 saacadood lagu soo deen dad kale dhul baa lagu xidhay ceergaabaanu soo gelinaa ma garatay 24 saacadood haddaan la soo deen inta joogta hartina waa daba dhilif waa la og yahay caruuraha maatada laga guranayo ceergaabo war waanu ognahay dib dambe loo guran maayo رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وأصلا صحافة وضياشة دلنيرتا حبلها سراكيشة عيد المضى والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحويا سيدا وضياشة ولا شيئين وضياشة يكهد لين وحويا وطلال لقاري ومضى waxa weeyaan ciidamada SSC Khaatumo waxa go'aan lagu gaaray in nimankaas heer galbeed iyo hartigaas aan wax ganacsi ah aanu kala gudbin inta la helayo nabad nabad la helayo oo waxa weeyaan deegaamadan cadaad markii kama jirin laakiin waxay sameeyeen hal dhugaale oo raggii nabadda ku dhex joogay ee nabadda ku dhex marayay ee baabuurta ka ganacsanayay inay birbireeyaan oo laayaan oo si xun u dilaan waliba u yeedhaan oo ka shaqaysanayay xaggana imanayay inay bilaabeen oo iyagu ku horreeyeen sidaa awgeed baan waxaan ku gaadhnay inaan wax ganacsi ah aana dhex marin ilaa ay nabad ku baaqayaan waxa weeyaan sidaa ay shalay magaraysaa saraakiisha SSC Khaatumo ciidamada ay shalay ka sii daayeen higlada taasna ku taageerada nabada Awr Bogays iyo inta ku hareeraysan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.